ciidamada Turkiga oo bilaabay gantaal argagax geliyay Greega. Talabadan la yaab kale ay wasaaradda difaaca Turkiga ay ku dhawaaqday in la geeyay gantaalka Atmaj ee gudaha lagu sameeyay, kaasoo ay soo saartay shirkadda Roketsan laguna naanayso dilaaga diyaaradaha dhammaan goobaha maraakiibta dagaalka. war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidanka badda ayaa lagu sheegay in gantaalkan oo si dhammaystiran lagu sameeyay gudaha dalka uu galay wax soo saarkiisa, isla markaana isticmaalkiisa uu bilowday sanadkan muddo kooban gudahoodna uu noqon doono mid la jaanqaadi karo dhammaan maraakiibta dagaalka. waxaa la qiyaasayaa in gantaalka lidka maraakiibta ee USA Horubon oo hadda loo isticmaala loo adeegsan doono oo keliya ah howlaha tababarka. waxaa la yaab leh in gantaalada Atmaj oo ay aad ugu horumarsan yihiin dhigooda Maraykanka ee Horubon iyaga oo gaaraya in ka badan 220 kilomitir, halka gantaalada USA Horubon uu yahay 140 kilomitir oo keliya. sidoo kale gantaalkan ayaa awood buuxda u leh inuu asiibo bartilmaameedka si dhammaystiran isagoo xambaarsan madaxyo qarxay. faa'iidooyinka uu leeyahay gantaalkan Turkiga ayaa ah in laga ogaan karo kaliya masaafo dhan 18 ilaa 20 kilomitir marka laga eego xawaaraha uu ku socdo, taasoo aan siinayn markabka la beegsaday waqti ku filan oo uu ku qaado tallaabooyin uu kaga baxsan karo duulaanka.